Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan horey usoo sameynay inaanu ka dhigno this linkigan inaan ka dhigno tracking board. Okay, halka kanna waxa weeye natin oo waxaan localkeena ka heli doonaa IP address anagoo DHCP isticmaali doonaa. Marka haddeer waxaan u baahanahay routerka kan inaan ka dhigo routerka kan inaan ka dhigo ayaan u baahanahay DHCP sida uu noogu qaybiyo IP addresseska. VLAN walba halka kan ayaa waxaan ka sameyn doonaa sub interface oo aan hore usoo sameynay ayaa DHCP u sameyn doonaa. Mid walbana wuxuu sii doonaa IP address. Okay, marka waxaan u baahanahay inaan sameyno DHCP inaan sameyno. Before intaanu DHCP aan sameyn waxaan fiirinaynaa IP address ayaan rabnaa inaan sameyno baan fiirino bal waxa IP address haysta. Marka inta tan ayaa IP address haysata haddeer. Marka fiilada tan interface-gaas ama portigaas ayaan waxaan u baahanahay inaan natinga ka helno IP address DHCP ah oo halka kana. Marka waxaa leedahay config t ayaa leedahay config t markaad tirahdid ayaa waxaa leedahay interface s0/1 IP address DHCP. waxaan ka wadaa IP addresska DHCP kasoo qaado ayaan ka wadaa. Marka halka kan ayaan ka dalbaday oo natinka ah oo localkayga ayaa isiinaya marka. Okay, marka waad aragtaa. Marka hadda fiirisid show IP NAT show IP interface brief haddaad tirahdid waxaan kasoo helay DHCP ayaan ku helay. Marka ma booqan kartaa waxa loo yaqaano google.com. wuxuu ku leeyahay ma naqaan buu ku leeyahay hostiga ama addresskaas waxaad u baahan tahay inaad translate ku sameysid. Marka waa no IP domain lookup way. Marka config t ayaa waxaa leedahay IP domain lookup. marka waxaad u fudhay in translate la sameeyo ayaa u fudhay. marka hadda pinka hadda fiirsid translate waa la sameynayaa oo IP addresska nageynaya waa kan, laakiin time out ayuu leeyahay. Why? shirkadda aan ka haysto internetka oo ISP-gaan internet ka soo xirtay ayaa iga xidhay inaan Google aan caadi u booqdo. haddii aad fiirisid computerkayga localka caadiga ah kama booqan karo waxa la yiraahdo google.com. wuuna kuu sheegay IP addresska kan aad halkan ka arkaysid iyo IP addresska kan waa isku mid, waa 172.217.142 waa isku mid Google IP-giisa waaye. marka ayaga ayaa iga xiray. marka laakiin haddii aad booqatid ping 8.8.8 Google waad aadi kartaa. marka waxaan u baahanahay horta inaan sameysano DHCP IP DHCP pool ayaa leedahay oo VLAN tan ah. marka network ayaa sameynaysaa 10.0.255.255.255 oo ah /24 ayaan u sameeyey. default route-kan wuxuu ii noqonayaa 254. DNS serverka asaga ayaa ii noqonaya 10.254 ayaa ii noqonaya. Okay, exit ayaa leedahay. marka adoo bobsiinaya ayaa halkan waxaa leedahay 20 ayaa leedahay. marka networka u baahan tahay halka kan ayaa imaanaysa inta kale ayaa ka bedelaysa 20 ayaa leedahay. default route-kan halka 20 ayaa leedahay. DNS-ka 20 ayaa leedahay. marka halkan 10 ayaa leedahay. ayaa leedahay
study marka show run hadaad tirahdid DHCP VLAN 10 VLAN 20 iyo VLAN 30 DHCP godo noo dhan yihiin marka halka kan hadaad timaadid interfacekiisna waa kuwan interfaceada waa kuwa kan okay show IP DHCP binding show IP DHCP binding waxaa lagu fiiriyaa in DHCP-gan uu qaybiyey IP address uu client uu qaybiyey weli wax client ma haysano okay haddii aad daadid kana aad daadid kana start aad tirahdid kana start aad tirahdid waxaa dhici doona inaanu IP address helo haddaadan show IP DHCP saddex ayuu isla markiiba soo siiyey haddii aad ku celisid afar ayuu siinaya ku celi iyo sii afar ayuu soo siiyey waa afarta computer ee noo yaal meesha way haddaa marka kan afurtid /1 ayuu siiyey haddii aad if config hadaad tirahdid IP addresska uu siiye waa kan marka haddaa ping aad ku samaysid routerka 254 inter hadaad tirahdid ping ayaa samayn kartaa ping 8.8.8 oo ah Google haddii aad booqatid ma booqan kartid you see ma booqan kartid because of wuxuu u baahan yahay natin ayuu u baahan yahay in lagu sameeyo network address translation okay taasuna waxa weeye inaan ogaano before nat intaynu natka aan sameyn wax Google-ka ma aan aadi karo mid walba wuxuu helayaa IP address mid walba you see kan wuxuu helay ping baa leedahay 254 okay ma booqan karaa taarigana sidoo kale taari 254 okay mid walba booqan karaa marka ayagu wax isku diri karaan device-yada in wax isku diran ayaan u baahanahay clear device kan Ubuntu 2 iyo Ubuntu 1 marka waa 21 inaan booqdaa ping inaan dhaho 10.1.20.1 ma la hadli karaa of course ha uu la hadli karaa sidee iskula hadli karaan because of default-kadu yahay haystaan marka way isla hadli karaan ama booqan karaa /30 ma booqan karaa of course ma booqan kartaa ma booqan kartaa 2/32 oo ah tan of course ma booqan kartaa marka uu noo saxan yahay ping 10.1.10.1 oo kii hadiraan ka nimaanay ah booqanka way isla hadli karaan of course all way isla hadli karaan 20.1 kulli way wada hadli karaan marka communicationku waa jiraa kulligood communication ka jiraa marka halka kan hadaad timaadid oo halkan aad tirahdid 8.8.8 iska wareegaya waa ma aadi karo marka hadaad tirahdid ping 8.8.8 no ma samayn kartid wax communication ah marka haddii aad fiirisid ping 10.1.10.1 oo ah VLAN 10 inuu la hadli karo aan fiirinay of course wada hadli karaan si marka taasina way fiican tahay inaad ogaatid marka haddeer waxaanu sameynay waxa la yiraahdo DHCP ayaan sameynay oo haddii aad halkan fiirisid show IP DHCP database no show IP DHCP
binding oo isla intiya automatic ayaa u heleen. You see, marka waxaan u baahanahay in aanu sameyno NATing wax la yiraahdo inaan sameyno network address translation. marka waxaan ka dhigi doonaa next lecture oo next lecture ugu dambeeyay weeye oo client-geena Google ku booqan karaan ee Google ka aadi doonaan in network internet-ka ay caadi isticmaali doonaan insha Allah. waxaan idin kaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.